wuxuu wiilku go'aansaday inuu kaamiro qarsoon dhigo jikada dhexdeeda. qorshihiisu wuxuu ahaa inuu adeegsado kaamiradaas si uu si qarsoon ugula socdo dhaqdhaqaaqa aabihii uuna u ogaado xaqiiqada dahsoon. habeennimadii xilli dambe aabihii ayaa soo laabtay isagoo wata shandadii, waxaana wejigiisa ka muuqday dhaawac. markuu wiilku arkay dhaawacaas wuxuu isku dayay inuu caawiyo, balse aabbuhu wuxuu si adag ugu sheegay inuu faraha kala baxo arrimihiisa. kadibna aabbuhu wuxuu toos u galay jikada. markuu wiilku arkay in hadalkiisu uusan waxba tarayn, wuxuu isaga laabtay qolkiisa, wuxuuna la soo baxay telefoonkiisa si uu shaashada uga daawado aabihii. balse markuu is yidhi haddaad ogaanaysaa sirtii, ayaa aabihii oo aad u feejigan wuxuu arkay kaamiradii geeska ku qarsoonayd. isla markiiba xiriirkii kaamirada ayuu jaray, wuxuuna si xanaaq leh u soo galay qolka wiilka. wuxuu uga digay inuusan mar dambe soo faragelin arrimihiisa, isagoo u sheegay inuu runta u sheegi doono marka wakhtiga saxda ah la gaaro. maalintii xigtay dhammaan dadkii u yimid inay iibsadaan rootiga waxay dareemeen in wax khaldan yihiin. kulligood waxay sheegeen in maanta uusan dhadhankii caadiga ahaa lahayn rootiga. wiilku warkaas ma rumaysan, mid ayuu si caadi ah u qaatay oo uu cunay, wuxuuna dareemay inuu aad u macaan yahay oo uu ka duwan yahay kuwii hore. laakiin aabihii wuu diiday inuu khaladkiisa qirto, wuxuuna si caro leh macaamiishii u muujiyey inaanay maanta wixii ka dambeeya jirin wax rooti ah oo uu iibinayo, isla markaana ku amray inay halkaas ka tagaan. markii ay guriga galeen, wiilkii wuxuu aabihii u sheegay inuu cunay rootiga isaga oo raaciyey inuu caadi ahaa, laakiin aabihii wuxuu wiilkii feer kaga dhuftay caloosha, taas oo keentay inuu isla markiiba soo tufo isaga oo dhulka ku dhacay oo xanuunsanaya. aabaha ayaa dul istaagay wiilkiisa, wuxuuna u sheegay inuusan cuni karin rootigaas. markuu aabaha baxay, wiilka wuxuu diyaarinayaa daawo hurdo oo uu ku shubayo koob biyo ah si taxadar leh, wuxuuna sugayaa soo laabashada aabihiis. habeenkii aabaha ayaa soo laabanaya isaga oo soo jiidaya boorsadii, jirkiisana waxaa ka muuqda daal. wuxuu cabayaa biyihii wiilka diyaariyey. daqiiqado yar kadib aabaha wuxuu bilaabayaa inuu wareer dareemo, ugu dambayntiina dhulka ayuu ku dhacaya. wiilka ayaa si degdeg ah ugu cararaya boorsada, wuxuuna u furayaa si taxadar iyo cabsi ku jirto, isaga oo filaya inuu ku dhex arko mayd ama wax xun, laakiin boorsadu way maran tahay. wiilka wejigiisa waxaa ka muuqda jahwareer. subaxdii wiilka wuxuu toosinayaa aabihiis oo dhulka yaal. aabaha wuu naxsan yahay markuu arko wiilka oo soo jeeda. si lama filaan ah, aabihii waxaa jeebkiisa ka soo dhacday silsilad, waxaana arkaya wiilkii. wuxuu soo qaadayaa silsilada isaga oo eegaya aabihiis. aabaha wuxuu isku dayayaa inuu qariyo sirta, isaga oo diidaya inuu ka jawaabo su'aalaha wiilka. banaanka guriga, dadweyne caraysan ayaa taagan. isla markaas waxaa imaanaya boolis baaraya kiis la xiriira gabar dalxiis ah oo xalay la weeraray. booliska wuxuu sharaxayaa in gabadha ay baxsatay laakiin silsilad laga goostay, waxayna sheegtay in ninka weeraray uu lugta ka dhutinayay. wiilka ayaa eegaya silsilada gacantiisa ku jirta, jigiisa waxaa ka muuqday cabsi, isagoo garowsaday in aabihiis laga yaabo inuu yahay dambiilaha ay boolisku raadinayaan. channel ku cusub tahayna saaxiib subscribe saar